munaasabada ay ka soo qayb galeen madaxweyne ku-xigeenka galmudug gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa guddigii doorashooyinka ee u dhawaan magacaabay madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cabdisamed Nuur Guleed kula kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoo la tashiyo ku aadan qaabka doorashooyinka yeeshay madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cabdisamed Nuur Guleed iyo gudoomiyaha baarlamaanka Xasan Maxamuud Haylo oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in xilliga doorashada ay tahay bisha Agosto isla markaana guddiga laga baahan yahay inay hawshooda gutaan dad baa yiraahdo waqtigii fadhamaan waqtigii waxba haray waxaan qabaa wuxuu yiri nin baa wuxuu yiri biciid baa wuxuu yiri anigu ugaar waxaan dheer qoos baan dheerahay markaas soo xabada ku dhacdo ma fargada waa isdiibaa waa hore uu iska dhiibay anigu madaxweyne ku-xigeenka dalkan waxaan oo doortay Agosto aan oo doortay inaan iraahdo waa been waxaan ku darsanaynaa idaacadaha aan marino ama orordo waa laga fiican waxa haddana madaxweynuhu saxay ama baarlamaanku saxay ama guurtidu saxay in Agosto laga dhigo mar kale inkastoo aan wax ka saxeexan haddana sida ay tahay baan qaadan waxa weeyaan xukunka aan jecleen ma jirto dadka xukunka haday tahayna ninka uu labaad baan oo ugu sareeyay guddiga qabanqaabada doorashadu waxaa laga rabaa iyaguna inay cadaalad la yimaadaan inay dadka iyo dalkana ay dastuur iyo xeerar ka soo saaraan sida loo galahayo baarlamaanka ninka laga rabo wuxuu noqon doono madaxweynaha ninka laga rabo fiigiisa iyo wuxuu noqon doono maalin walba waxaa la yiraahdaa baarlamaanka waxaa laga dhigay rag aan u qalmin dawladda waxaa laga dhigay rag aan u qalmin maanta hana la ka ilaaliyo maanta si kastaba ahaatee kulankani maanta dhex maray guddiga qabanqaabada doorashada ee uu magacaabay madaxweyne ku-xigeenka ee qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku soo beegmaya xilli aan weli la xalin khilaafkii ka dhex jiray mas-uuliyiinta maamulka Roble Maxamed Dirir Universal TV Gaalkacyo